بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد سورة وذا خير شرفت له أني وأولادكينا صادق حسن بوه waxaad nagu baratay mar kasta inaan idin soo duubo ama idin soo gudbiyo cashiro aad u wanaagsan cashiro aad u taxana ah cashiro aad u faa'iido leh cashirooyinkaas kala ah marka electrical electronic engineering qaybihiisa kala duwan hadday ahaan lahaayeen electrical iyo hadday ahaan lahaayeen electronic isku wada jiro sida programyo fara badan sida PLC programming iyo programyo kala fara badan oo halkan aad ku daawantaan badanaanbo idin soo gudbino runtii channelkayga Somali Tech Lab runtii waxa ku jiro dhowr cashiro oo kala duwan runtii electronic oo ku jira electricalkii iyo qaybihiisa kala duwanaa electronic qaybtiisa kala duwan haddaad aragto Somali Tech Lab haddaad booqato waxaad arkay departmentii electrical electronic engineering wax kasta quseeyo ayaa ku jira halkaas runtii inaad ku faa'iidaystaan rajaynaa mar walbo runtii baahida aan maanta aan rabo in macnaha shacabkayga ama inaan buuxiyo waxa kamid ah runtii departmentigan electrical electronic engineering waa runtii departmenti aad u weyn qaybihiisa kala duwan runtii waxaan jeclaystay in markaan ka waayay runtii wax oo afka xooy wax ku sharaxo luqadeena Soomaaliya kadib markaas kadib baahida aan rabo in maanta bulshada inaan daboolo waxa kamid ah inaan fahansiyo qaab ahaan luqada afka hooyo inaan ku hadalo wax kasta oo quseeyo departmentiga electrical electronic engineering sidaas darteeda markaad daawato si fiican u fahmeeyo haddaad tahay qof Soomaali ah runtii wax kasta oo luqadaada hooyo ka baxdo waad most inaad fahantid maaha luqadaha qalaadka sida Englishka iyo wixii la mid ah sidoo kale Arabiga macnaha runtii waa luqadeena labaad waa second language kaano runtii asigana aad baan u jecelnahay markasta inaan wax ku soo gudbino aad u fahmo badanaa Soomaalida maanta waxa waaye luqadaha wax ku fahanto waxa kamid ah sida luqadaada hooyo hadday ahaan lahayd Arabi iyo English saddexdaas luqad waaye runtii haddaad maad ishaga luqadaha afka Soomaali haddaad wax ku sharxayso runtii ka basi fiican qofka fahankiisa soo dhawaanayo taas waa xorda oo maanta sababaha ay u kalifay inaan macnaha cashiro inaan soo duubo YouTube channel kama ahana YouTube ana ma aan sameeysan sida inaan lacag ka helo oo kale ma aha waa kali in macnaha waxa waaye qof kasta oo barto electrical electronic engineering ma aha kali in electrical electronic engineering xitaa waxa ku jiro skills iyo farsamada gacmaha lagu sameeyo xitaa way ku jiraan qof kasta inuu ku faa'iideysan karo habka wax uu sameeyo sida house wiring-kii sida guryaha loo geliyo korontada oo kale way ku jirtaa sida saacadaha macnaha qofka maanta oo kulad kale oo xisaabiyo waxyaalo qaar macnaha runtii ma aha qofka inuu jaamacad dhigto hadda qofka macnaha waxa waa sun jaamacad dhigan xitaa haduu daawado cashirahan wax badan oo faa'iido sida house wiring-ka runtii skills-kii ay kamid tahay daraftirkeedu runtii maantana waxa cashiro waxaan bilaawi doonaa haduu idmo cashirkii ahaa AutoCAD runtii maanta waxa waaye 19 bisha 10aad 2020 ayaan waxaan rabaa inaan soo gudbiyo cashirkii ugu horeeyay AutoCAD sababta maxaa waaye horta AutoCAD maxaa waaye waa computer inuu shay computer design wax shay in computer lagu design gareeyo waa software computer lagu design gareeyo ama computer lagu qoro runtii waxaana adeegsado engineerada kala duwan sida electricalkan qofka barto hadduu rabo macnaha guriga markuu naqshadayna oo korontooyinka qaab loo gelinayo iyo symbol qaar macnaha waxa waa inuu adeegsado sida resistance iyo waxyaalaha kale length-gi iyo wax kasta oo halkaas oo quseeyo electricalka runtii markaas aad u fiiriso electricalka iyo civil engineering waa laba shay waxa u moodaa inay dhashtaan oo kale runtii waa labo aan isku kala xireen sababtoo waxa waaye hadaa electrical tahay civilna waa must waad ka arkay waxyaalaha adigu xitaa shaqadaada ay soo dhaxgalay runtii waxa loo baahan yahay inaad civilka
wax un inaad ku garato electricalka ninka electricalkan aan inuu civil-ka yaqaano most in macnaha waa boqolkiiba 50 inuu yaqaana ninka civil-ka aan sidoo kale inuu boqolkiiba 50 electronic inuu yaqaana runtii la wishay sida xisaab ay physics oo kale yihiin xisaabta kama maaranta physics kama maarama xisaabta macnaha physics waa xisaabna waa fi xisaab fiiri waa electrical iyo civil waa sidaas oo kale mid kale qofka markuu civil-ka tusaale civil-ka ninka markuu drawing sameeyo oo grid oo drawing ka sameeyo waa qofka oo engineer-ka oo electrical-ka hadii la dhaho macnaha gurigan u baahanahay in macnaha waaye hab qurux badan ina igu drawing gareyso oo korontooyinkiisa iyo wixii marwaxadii iyo ya leerarkii iyo TV iyo waxyaala ina design gareyso markuu dhaho inuu cabir ka yaqaana guriga shaxdiisa inuu yaqaana qofka masaaxadii iyo badki wax inuu yaqaana waa musti haduusan yaqaan meelaha marka oo distribution go dhigayo iyo switchada meesho dhigayo leerarkii iyo AC-gii iyo hadhow waxay ku noqonayaan marka difficult sababtoo ah waxa meeqa inji meeqa senti intaas meter intaas waa inuu yaqaana sababtoo ah waxa waaye hadduu uusan intaas aqoonin waa dhibaato waxay ku noqonayaan soomana u budhi garay la ama u dhisi lahaa oo shaxda u dejin lahaa taas waa taas AutoCAD-ka runtii waxa adeegsada electrical-ka waa adeegsanaa civil-ka waa adeegsadaa mechanical-ka any engineer waxa waaye waa must wuxuu adeegsanaa AutoCAD-ka runtii AutoCAD-ka faa'iidadiisu waa saas sababta AutoCAD-kan runtii baryahan dambe teknolojiyada marka ay horumar ay gaareen dadka runtii waa technology oo kasoo kordhay aqoonta marka runtii waxay kasoo kordhay maanta AutoCAD-kii dadkii hore maana waxay wax dhan ka samaysan jireen sida gacantii ayaa wax lagu sawir jiray hand drawing ayaa la samayn jiray gacmaha in macnaha waxa waaye qalinka loo qaato iyo buugga la drawing gareeyo haddana easily software-ka ayaa mar hadda software-ka AutoCAD haysato computer-ka design-kiisa waxay ku qaadanayaan marka waa in yar sababta waxa waaye haddii gacanta way ka dhib badan tahay runtii computer-ka waa easily gacanta ayaa ka dhib badan computer-ka marka computer-ka waa easy gacanta dhib badan runtii saan u soo nahay runtii AutoCAD-kan waxa waaye 2D iyo 3D waa 2D iyo 3D waa 2D 3D labadood waxa waaye adapted AutoCAD-ka civil engineering iyo adapted electrical-ka waa must waa inaad adeegsataa 2D 3D taas waxaan ka dhihi lahaa sida taas runtii sidoo kale haddeer maxaan rabnaa marka inaan soo kicsano programkeeno AutoCAD-ka waxaan bilaabi doonaa insha allahu tacaala cashiro taxana ah runtii ay socdaan waxaan rabnaa cashirooyinkan si fiican inaad u daawatid kadib wixii adiga oo aad garan weyso inaad macnaha commentiyada inoo soo qorto sida kale dhiirigelinta runtii inaad share noo dhahdo asxaabta kale inay sii gaarto runtii waxa kale sii rabnaa inaad haddaad subscribe noo saar like share runtii share-kan waxa waaye runtii qofka walaalka ayaa ka faa'iideysanaa hadda adiga u share gareyso runtii waxaan ana wax la share garay waa aqoon waaye aqoontan waxa siideed waxa fiican in la isgaarsiyo intan macnaha aniga miihi qof maanta runtii ma idin lihi aniga waa idinka aqoon badanahay runtii intan yar aniga maanta ah haysto oo yar waxaan rabaa marka inaan dadkii sii gaarsiyo waxa waaye runtii haddaad maanta aqoonto in yar hadda haysto aad fidiso runtii waxa waaye asxaabta kale waxa waaye u baahan yihiin inay ka faa'iideystaan adigana marka runtii share gareynta noo share gareyn runtii wax badan adina naftirka ku anficin inaad ka faa'iideysato runtii haddana waxa waaye waxaan soo kicin doonaa insha Allah taala AutoCAD-kii sida tan AutoCAD waa kana haddeer shaashadan waaye oo black ah ama midooban runtii wax kasta gudaha lagu qoro doono waxa waaye white waaye sababtoo waxa waaye black looma qoro doono white waa black waa sida qofka uu arko marka hore runtii cashirkii koowaad aan gali doonaa horta cashirkii koowaad intaan galin ka hor waxaa halkan ah sumado ama ramsiyo qofka soo u yaqaano waa intaan waa sumado waaye sumadooyinkan sida tan waa kan waxa waaye sumadii line-kii waaye kan waxa waaye multiline-kii inta dhan polygon-kii iyo rectangle-kii iyo intaan dhan bay yiraahdeen
spline-kii iyo waxa waaye circle-kii iyo goobadii la wadaa markaas intaan dhan aad arkaysiin waxa waaye runtii waa waxyaalaha qaar maanta oo loo isticmaal loo adeegsado multi-line text-kii waa kaas noo sidaas intaan waa tools waaye haddaan runtii intaan dhan waa toolskan la isticmaalo waa hadda waxa waaye intaan ku save gareyn kartaa file-kii halkan edit-kii view-kii insert-kii format-kii toolskii drawing-kii animation-kii modifying-kii iyo window map helping waa intaan idan tirkeedo intaan waxa waaye kadhinkii waa intaan oo start button-kan intaan dhan saaran waa waxa la adeegsan doono output loo adeegsan doono waad arki doontaa hadeer waxa waaye kuma xor dhici doono runtii step by step wax dhin arki doono insha Allah new-gii waa way control n key gidaha kan open key waaye kan save key waaye markaasay runtii kan waxa waaye markaasay blind key waaye kan waxa waaye runtii print-kii hadii wax shay dhammayd inaad print gareyso runtii kan waxa waaye wax markii la jaraayo waxa waaye kan key waaye oo kan waxa waaye markaasay copy to copy la iska dhaay marka kan waxa waaye markaasay paste form kii waaye runtii intaan dhan halkan ku jira marka waxa waaye waxyaala qaar oo runtii waa la isticmaala dhammaan waxa hadda lagu tagay malaha step by step ayaan gaar doonaa shay kasta waxa waaye mugu hor dhicino booskiisan ka tagi doonaa insha Allah taala okay waxaan leenahay marka cashirkii koowaad waxaan rabnaa inaan drawing gareyno first one length ama dhirir okay waa dhirir markaan drawing gareyno laba qaab ayaa jiro marka runtii loo drawing gareynayo waa qayb koowaad waxa waa qayb ugu easy ah ama ugu fudud waa halkan aan soo qabanay line-kii in halkan aan ku dhufanay marka kadib waxaan leenahay marka sida tan sameey kan g drawing sameey markaas maxaa sameynayso drawing waa kan easy way jaa halkan ka markaas halkan marka ka ku dhufo intaan ku dhufo marka saa u deysid waxa dhay markaas enter dheh ama soo qabo halka soo qabo ko waxa waaye click dheh markaas click dheh markaas click marka dhaad kadib marka waxa waaye marka waxa sameynay marka ESC taa markaas ESC da minus waxa waaye markaas waxay kalin gareysaa ama tirtirtaa waxyaalaha ka qabsaday marka drawing sameynayso waxay ku taalaa computerka markaas saa dhaxfis waxa waaye markaas left iyo right waa markaas dhanka leftiga ama bidixda ayaa ku yaala markaas ESC okay waa qayb kan koowaad waa sida tan haddii rabo markaas inaan delete gareeyo waa hadeer length dhirkii waa sameeyay markaas dhirka markaas aan u sameeyo waxaan rabaa marka inaan delete gareeyo waa kana delete iyo erase manat iyo cleaner isku mid ma marka delete waxa waaye dhammaan hal mar waxa waa dooranay waa kana marka hore ku highlight saaro click dheh markaas dushi istag click dheh kadibna marka waxa waaye waxa tagay marka delete oo waxa ku taala markaas computer ku taala marka qof kasta computer dhinac u taala ani waxa ku taala computerkayga dhanka right ku taala markaas isla geeska markaas es ka waxa ku taala marka leftiga kan waxa ku taala markaas right key okay waxa taala markaas del waa markaas waa hal markaas u taabto waa kana iska marka automatic waxa waaye waa baxay marka waxa waaye inuu delete gareemay markaas waa step-ka koowaad ama step-ka maanta ugu easy la andhi karna marka waxa waaye iska markii saan u soo qabatid waa kana saana u soo qabsanee waa kana halkaan ku dhufo marka saa u iska markii waxa sameeyay marka drawing jid markaas fiir drawing saa u jid marka waa intaas fiiri intaan waxa waaye lambaradan au jeedaa marka waxa waaye lambarka had oo socdo hada waxa marnaa 5 fiir 6 waa kana inta rabta dhow oo aad ku darsan karto markaas ilaa hadeer noogay 10 noogay waa kana 10 bounty something kadib marka click dheh markaas waxa waaye marka dushiis marka click marka saan ku dhaho waxa waaye digriga hada saan marka digriga marka joogo wuxuu joogaa marka 0 waa markaas haddaan saan u soo dhaadhaco inta marka imaado jaa waxa waaye waxa uu imaanaa markaas angalka 270 uu imaanaa markaas haddaan saan u baxno waxa waaye runtii angalka mar kasta saa u wadwaay kadib baan ka haddo angal inaan sibir marwe marka kadib marka waxaan leenahay markaas ES wax tan rabta inaad dilad galmano length-ga dhirka ina kali ina ogaadid kadib waxa dhahay marka ESC tag karan taabnaa marka waa ka automatic ahaan waa ka length-ga waa dhirka waa u sameeysan yahay waa kan inta soo bilaab ila intaan waxa waaye 10 dhibe something macna 10 dhibe xogaa ba 5 intaas waaye haddii rabto dhow waxa waaye 10 kaas waa keen kartaa oo dheerayn kartaa waa ku sii gaabin kartaa markaas inta rabto okay waa qaybtii koowaad waa sida tan waa click dushiisan click dhahaa marka rabo inaan delete gareeyo waa markaas kadib waxaan leeyahay markaas delete aan taabana markaas oo ku taalo computer hadba qof kasta computerkiisa dhanka uu taalo waa ay yaqaano kadib marka waxa waaye dhac waa delete gareeyo markaas okay waa taas waxa kala jiro qaab macna waxa waaye value waa qiimo inaan ku soo saaro horta marka hore la soco waa x iyo y axis x marka at the origin ka intaan waxa waaye 0 0 intaan waxa waaye 1 2 3 ila something intaan waxa dhahay markaas
0 0 haddii inta taabato 1 2 ilaa something waa x axis y axis ala markaasi horizontal iyo vertical line. Okay, waxaan rabaa marka hore l inter aan dhaafiri l inter waa length yaa rabaa maano l inter markaan dhaw waxaan leeyahay markaasi 1,1 fiiri 1 comma waa kana comma aan faasila 1 inter fiiri 1,1 inter aan dhahay markaasi haddana maxaan leeyahay markaasi 3,1 waxaan rabaa abirka intuu dhahay waa abirka hadda waxa waaye 1 ilaa 3 waa markaasi intuu dhahay bas adoo waa ka barin kartaa waa ka yeelan kartaa hay 3,1 inter hay maxay dhiman markaasi ESE inta baan arag intuu ku jira markaasi haddana aan fiiri waa kana fiiri intuu noo galay markaasi intuu galay waa kana markaasi waa intaan fiiri waa kana intaan waxa markaasi 3 waa markaasi intaan 3 waa markaasi intaan 3 waa markaasi inta soo bilaaw 1 soo bilaaw ilaa inta maran 1,1 faasila 3,1 waa kana intaan 1 ilaa 3 la wada markaasi 1 ilaa 3 kan waxa waaye markaas length waa marka asxaabta sharafta leh runtii waxaan maanta rabnaa inaan si ogaano sida loo drawing gareeyo length ama dhirir waa arnay dhirirka si loo drawing gareeyo oo asxaabta sharafta leh soo dhawaada cashiradu way socdaan insha Allah taala haddii cashirkii koowaad waaye muqaddam ahaan hadda hor dhaca runtii waxaan rabnaa cashiro aad hadeer runtii waa basic ahaan bilow waaye runtii waa cashiradu way badan doonaan insha Allah taala hadeer waxaan rabnaa marka inaan haddana mid kale inaan sawirno kan aan isdiirad gareeyo markaasi waxaan leeyahay markaasi okay sawir kale loo soo qaad marka inaan oo drawing gareeyno waxaan soo qaadana marka aan sawir marka waxa waaye mid kale aan soo qaadana marka tii hore way duwan tahay markaasi horta mar kasta oo marka dhameeyso waxa taabanay markaasi ESE waa cleaner waa markaasi ina si clean lagu okay waxaan leeyahay markaasi L enter tii way duwan tahay markaasi waxaan leeyahay markaasi waxa waaye waxaan leeyahay markaasi click on the screen waa kana on the screen marka shaashadii click sameeyaa markaasi shaashadii ku dhufo waa markaasi okay shaashadii aan ku dhufo waxaan leeyahay markaasi at the origin ama waxaan leeyahay markaasi kan waxa taabanay shift 2 waa taabanay markaasi shift 2 marka taawatid jaa iska markii waxa taabanay markaasi angle-ka markaasi waxa leeyahay markaasi 20 aan markaasi 20 hey 20 maxaa markaasi 20 angle shift angle laadama shift angle waa kana shift angle waxa markaasi 0 enter markaas enter aad marka ugu dambeeyso haddana waxa waaye shift 2 at mana shift 2 marka shift calaamada 2 waxa waaye markaasi at waa markaasi taas waxa waaye marka at gmail.com taas amal waaye sumadaas marka waxa ku talaa numberka 2 marka shift 2 la iska dhigay marka adiga haye marka saa u taawadid maxaa sameeynaa marka kadib marka shift 2 marka saa u sameeyo waxa leeyahay marka 10 aday markaasi 10 shift angle ka meeqa waa markaasi 270 enter day markaasi hay hadhow result inuu soo bixi doono oo ogaan doona markaas sharaxi doona markaas hadana shift 2 5 shift angle 180 مغلق انتر هيدوبين هذا هو shift add 4 angle 9 انتر كدي waxaan isticmaalnaa markaasi ESC waa kana dhag karaan taabta markaasi waa kan hadeer fiiri ana intuusan doona insha Allah waa kana fiiri hadeer waa kana hadeer wax aan soo saarin maxaa marka si fiican u fiiri cabirka fiiri markuu maxaan dhaanay markaasi 20 waa kan hadda waxa waaye intaan leenkan waa 20 waaye markaas dhirirkan halkan 20 waaye waa 20 markaasi waa 0 degree waaye markaasi hadda hoos soo dhacay waxa waaye markaasi waa 270 waaye markaasi intaan 270 waaye kan 270 waaye markaasi meeq waaye markaas dhirirkiis meeq waaye markaasi 10 waaye markaasi waa kan dhirirka laba jibaarka kan laba jibaarkiis waaye kan waxa waaye halkii kale 10 kan waxa waaye markaasi hadii 20 yahay kan waxa waaye 10 waaye markaasi okay kan muxuu noqdaa markaasi kan waxa waaye 5 waaye 5 kan 5 waaye kan waxa marka 4 waaye waxaan rabnaa marka inaan ogaano okay taa markaasi f waxa taawana f2 taawana marka waxa leeyahay marka f2 taawo waxa leeyahay marka intan fiiri
specifically next bounty or online markaasi waxa la markaasi angle 20 firi adda 20 angle 0 inta maxaa la markaasi specific next oray bounty or oray markaasi undo waxa la markaasi add 10 angle 270 degree okay specific waxa la markaasi halkan waxa markaasi 5 waxa marka hoos waa markaasi inta markaasi waxa marka add 5 angle 180 the last waxa la markaasi add 4 angle 90 waa intan waa marka asxaab sharafta leh soo dhawaada cashiradan oo BLL shirhan sheeg adiga AutoCAD-ka runtii way socdaan hadda maanta cashirkii koowaad waay waan soo badin doonaa dhowr cashiran ka sameyn doona insha Allah taala AutoCAD-ka dhamaantiisa dhameystiran min bidaaya ilaa nihaaya ma bilow ilaa dhamaad runtii drawing hadda waxa way basic waay drawing qaar macnaha waay waxaan sameyn doonaa insha Allah taala guriga inaan drawing gareyno ani waxa waay drawing inaan sameyn doonaa insha Allah taala qayb ayaan soo gudbin doonaa cashirada ma badin doono insha Allah taala saa oo qofka soo ku fahmo qofkii basic aha iyo qofkii macnaha way high iyo medium ka ah dhan inay wada fahmaan insha Allah taala waxaan leeyahay soo dhawaada khiyaarta sharafta leh khiyaarta aan aad u jecelahay runtii janaalkayga aad u daabado waxaan leeyahay marka soo dhawaada noo share gareeya like share comment insha Allah taala wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh